بسم الله الرحمن الرحيم كنت وعنا ونكسن داوديا شقيمة قدرت من كسر هذا البرنامج كي اللي كانوا كل هذا وبرتين إن تداوتان حقه والتلفزيون قرنك تطبع الضبع برنامج كسر ذلك وحنا كسر قادنا وحيابها نقول لها وفكس كحيابها للصاري واحد تلقوه ذا يمسكح ذا كجوحية عالم كجودهان وحكيشره والوين أو كسبسن حنو كان لخاطيبته يسوون أنتم أقرأون أو كسبسن اللي يرادو كورونا 19 معناها الله بكون يستقل يتوانكي أيوه كسب بحي حنو كاني مجال لقوا مجعوهان أو كطالب برتمها درك الشينا حنو كان يروح وكم دي حنونا الشدة فضود وقول حفاف بالشدة وحنا لقوا كلا قاضي الله بس يابط وقفك نفتي شيء كوسو لواتو أما قفك هندي سهلما مركو يراو وحسي ديني أمحي إلا سدح كون جيرمسو إندها وأنا أركين مركا برنامجيدي wararkii wixii oo dhanba toddobaadkan iyo bishan inta uu jiro dhan waxaan kaga hadlaynaa xanuunka kan iyo siyaabaha loo kala qaado talabaad waa gacantaada meesha aad dhigayso inaad mar walba maskaxda ku hayso meelaha basaska birta la qabsado albaabada la furayo birta la qabanayo jarjarooyinka la fuulayo dabaqyada iyadoo aad gacanta ku taabato intaba waxa weeye si fudud ayuu kugu dhacaya haddii mar walba adigu aad gacmahaaga mayrin saabuun chlorine detol wax alla wixii jeermiska dilaya dhan aadan ku mayrin dhib weyn baa ku soo gaaraya talabaad waa digniin annaga aan dadweynaha uga digayno loo baahan yahay inay ka feejignaadaan diifka qofku dhahayo asagoo dhacaankaasi fariiso ku jira ayuu haddana misna indhihii taabanaya hadduu indhihii taabto qofkii waxaa ku dhacaya xanuunkii hadda waddanka la yidhaahdo Kenya gaar ahaan meelaha Soomaaliya degta gobolka Turkana waxaa ka jira cudur tirkooma la yidhaahdo oo indhuhu ay qofka weersho noqonayaan asoo qofkii sidaa haddana hadduu ku sii taabto in beel buu ka qaadaya marka ilaahay waxaan ka baryaynaa Soomaali haddaan nahay dhammaan duwalka muslimiinta oo dhan inuu ilaahay naga badbaadiyo teeda kale waddanka Spain wararkii Afrika ugu dambeeyay aanu helnay ayaa sheegay in ugu yaraan 738 qof ay hal mar qura nafta ka bootay marka kan aan kaaga dhaxbaxo idinka iyo barnaamijkii waa fariin caafimaad oo kaaga timid wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee dowladda Soomaaliya oo ku wajahan cudurka coronavirus ku dhaqo gacmahaaga saabuun iyo biyo soconaya 30 ilbiriqsi ku dabool afka iyo sanka tiish adigoo xusulka laabaya marka aad qufacaysid ama hindisaysid ha u isticmaalin gacmahaaga qufac iyo hindisada xusuusnow inaadan gacmaha ku taaban afkaaga sankaaga iyo indhahaaga ardaydu waa inay ka fogaadaan inay hal weel wax iskula cunaan ama iskula cabaan waa inay ardaydu si sax ah u raacaan fariimaha caafimaad kuna dhaqmaan haddii aad isku aragto calaamadaha cudurka coronavirus sida qandho qufac iyo neef qabatin u sheeg waalidiinta inay fasax kuu qaadaan si aad guriga u joogtid soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee Soomaaliya iyo wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dunida oo dhan qasaaraha dhinaca dhimashada ee uu sababay cudurkan coronavirus ayaa gaartay 30,000 saraakiisha dacallada adduunka qaarkood
ayaa siyaabo kala duwan sharaxaad uga bixinayay waxaana ay sheegayaan in khasaaraha ugu daran uu jugtiisu uu gaarsiiyey wadamo badan oo caalamka ah islamarkaana ay sii socoto. coronavirus waa cabsi weyn oo dhinaca caafimaadka ah islamarkaana waa virus dilaa ah waxaana arrintan si weyn oo baahsan uga wada siman dalalka adduunka oo dadyoga ku dhaqan marka loo qaybiyo 3 meelood hal meel ayaa uu saameeyey khasaarihiisa dhimashada. marka aanu eegno dhinaca qaaradda Yurub waxa ay gaartay 20,000 oo kaliya 28kii bishii March 2020 halka Talyaaniga iyo Spain ay ku warameen in 800 oo qof inay u dhinteen. madaxweyne Donald Trump ee dalka Mareykanka ayaa go'aansaday in uu yahay dalkiisu mid uu si xun ugu dhuftay gaar ahaan magaalada New York ayaa ugu dambeysay oo la geliyay karantiil. 3 meelood hal meel dadka dunida ku dhaqan ayaa la geliyay karantiil iyagoo dadku aanay ka soo bixi karin guryaha sababta oo ah cudurka oo ku sii fidaya haddii mujtamacu meelo bulsho ah uu isugu yimaado. waxaana meesha ka baxay kumanaano kun oo shaqooyin ah. shaqaalihii iyo howlwadeenadii dhinaca caafimaadka ayaa iyaguna culays badan saaraya dhaqaalaha dalalkaasina waxa uu inta badan ku baxaya sidii lagula tacaali lahaa caafimaadka dadka uu haleelay cudurkan. waxaana sidoo kale aad u adag jugta culus ee dhinaca dhaqaalaha ama culayska weyn uu saaray oo meesha ka baxay haddii ahaan lahayd shaqooyinkii infrastructure-ka iyo socodkii ganacsiyada gaadiidyada isaga kala gooshi jiray dalalka caalamka in muddo ah dal kastaahi uu dib ugu soo ceshto dhaqaalihii ka lumay. magaalada Wuhan oo ah magaalo ku taala bartamaha dalka Shiinaha oo ahayd halkii ugu horeysay oo cudurkan markii horeba lagu arkay dabayaaqadkii sanadkii la soo dhaafay ee 2019 ayaa saraakiishiisu waxa ay qaadayaan talaabooyin taxadir leh oo lagu jiheynayay caabuqa waxaana mar kale si aanan dhamaystirnayn loo furay magaaladaasi Wuhan kadib 2 bil oo uu cudurkan jahwareeriyay dad aad u tiro badanna inta la ogyahay ay u dhinteen. karantiil ayaa la geliyay in ku dhow 12 milyan oo qof oo ku dhaqan magaaladaasi. maadaama madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo dalkiisu uu ka mid yahay wadamada uu sida ba'an dhibaatada uu ugu hayo cudurkan coronavirus waxa uu soo rogay karantiil in lagu soo rogo deegaanada iyo magaalada New York. karantiilkaasina waxaa loola dan leeyahay in dadku ay joogaan guryaha kadib markii ay siyaasiyiinta hogaamiyayaasha mucaaradka awoodda badan ee dalka Mareykanka ay ka digeen fidista cudurkan in ay ka sii darto. Trump ayaa tweetkiisa waxa uu soo dhigay in karantiilka uusan ahayn wax muhiim ah kaliya 8 saacadood kadib markii uu ka naxay deegaanka magaalada New York cabirka epicenterka fidista cudurka corona oo aad u sareeya ayaa keenay qorshaha in la soo rogo karantiilka tasiilaadka ka hortaga iyo maareynta xanuunka darteed. waxaa dadka laga codsaday inay safarada shaqooyinka muhiimka ah aanay ka joogi karin halka kuwa kale ay iska joogaan. saraakiisha caafimaadka ayaa sheegaya in kuwa ka warwar qaba magaalada New York ay marto dhabihii ay qaaday Italy iyadoo xirfadlayaasha caafimaadka ay yihiin kuwa ku daalay cusbitaalka oo si naflacaari ah ugu baahan qalabka ka hortaga iyo kuwa hawasiyaasha ama hawasiyaasha ah. Andrew waa qof bartay cilmi nafsiga magaalada New York waxa uu ka hadlay xaaladda isagoo sheegay in cusbitaalkii lagu ogaaday xaaladiisa caafimaad haatan lagu karantiilayo iyadoo ay dhici karto in uu hayo caabuqa. ma jiro qarash ku filan ma lahan baaris ku filan ma jiraan qalab gaar ah oo dadku loogaga hortagayo sida kuwa lagula tacaalayo xanuunka gudaha cusbitaalka oo ay joogaan dad badan oo qaba viruska ayuu yiri mar uu la hadlayo wakaaladda AFP.
waraysi gaar ah oo uu siiyey xilli uu qufac ka soo dhexgelayay waraysigii ay wakaaladaasi la yeelatay. Mareykanka haatan waxa uu ka duwan yahay kiisas kale ee COVID-19 caabuqa laga helay dunida inteeda badan waxaa ku dhintay 124,000 waana sii kordhi kartaa. Yurub dalalka si weyn ayay ugu dulqaateen markii uu ku dhuftay marka loo eego dalka Mareykanka iyadoo in ka badan 20,000 oo dhimashadu ay gaartay, taasi oo kala bar ay yihiin kaliya dalka Talyaaniga oo si xun ugu dhuftay. dalka Spain oo ah dalka labaad ee dunida uu sareeyo qasaarihiisa uu u geystay ayaa la sheegay 832 dhimashada kaliya 28kii bisha March halka tirada guud ay si cagacagaynayso 5812 oo qof. Madrid oo ah caasimada dalkaasi ayaa gabi ahaanba albaabada loo laabay iyadoo la joojiyay dhammaan howlaha meelaha laga maarmi karo, inkastoo ay madaxdu sheegayaan in ay ummaddu dalkaasi ay fakar cusub ka qaateen cudurka oo sii fidaya. dalka Ruushka oo qasaarihiisa uusan badnayn ayaa 30 bisha March xuduudihiisa xiraya iyadoo aan loo eegin tirada cudurka oo aad u hooseysa in ka badan 664,000 oo tusaale sheekada coronavirus ku saabsan ayaa la diiwaan geliyay dacalada adduunka oo dhan tani markii uu cudurka bilowday dabayaaqadkii 2019 sida qoraalka caabuqa cudurka oo loo yaqaano coronavirus la soo saaray. dib u dhaca kala duwanaanshiyaha iyo tijaabada iyo baarista aanan ku filnayn meelaha dalalka qaarkood ee dunida sida ay u kala duwan tahay ayaa la sheegayaa in tirada ay sii kordhi karto. isku soo wada duub dhinaca dalka Faransiiska 2000 ayay maraysaa tirada dhimashada. Ra'iisul Wasaaraha dalkaas Edouard Philippe waa uu ka digay dagaal xoogan ayuu ballamiyay in labada toddobaad ee ugu horeysa bisha Abriil ee soo aadan dalkaasi uu qaado 1,000 qof waxa ay ku dhinteen dalka Ingiriiska. Belgium isaguna dhimashadu way sii kordhaysaa 353 qof halka wadamo ay ka mid yihiin Iran 139 ee tirada dhimashadu ay marayso. Hindiya waxaa la xiray dhammaan tuulooyin aad u tiro badan ee magaalooyin si cudurkaasi looga hortago. Koonfur Afrikana waxa ay ciidamada baleyska ay tuureen rasaasta rabarka iyagoo kala eriyay dadka isugu imaanaya meelaha lagu xoomo ee ganacsiga ee dukaamadu ka mid yihiin iyo goobaha kale si looga hortago fidista cudurkan. gudaha dalka Talyaaniga waa barta sida weyn loo xasuusto ee gaar ahaan magaalada Rome waxaa soo kabasho dhinaca caafimaadka ee cudurkan caabuqiisa ka reystay dad aad u tiro badan. markii la wareystay waxay sheegeen inuu ahaa xanuun aad u kulul. Yurub waxa ay ka cabanaysaa xooga cudurkan uu ku sii yeelanayo oo ay ku tilmaamtay masiibo qaran oo aad u baahsan oo toddobaadyaddan farakulul ku haysa qoomiyadaha iyo bulshooyinka ku dhaqan guud ahaan qaaradda Yurub. 10,000 oo qof ayaa qaaradaasi aan isu gudbi karin oo qof walbaahi goobtiisa ayuu joogaa. wadooyinka ayaa xiran. magaalooyinka Paris iyo Rome iyo Madrid oo ah meelo aad u mashquul badan ayaa gabi ahaanba cidla ah oo ay cabsi ku qabanaysaa marka aad indhaha saarto. sidoo kale 1.5 bilyan oo caruur ah ayaana dugsiyada tageen guud ahaan caalamka sida ay ku warantay wakaalada ama hay'adda ugu qaabilsan waxbarashada adduunka. 87% dadyowga adduunka ku nool ayaa ah caruur ama arday wax dhigata waxaana iskooladaasi la xiray kadib markii fidista cudurkan la soo sheegay. 6 milyan oo macallimiin ah ayaa haatan guryahooda iska jooga, laakiin jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa hay'adda ugu qaabilsan waxbarashadu waxa ay leedahay 165 wadan ayaa albaabada loo laabay. hay'addan oo xafiis ku leh magaalada Paris waxa ay sheegtay in saraakiishu loo baahan yahay inay raadiyaan talaabooyin lagu caawin karo carruurta iyo waalidiintu inay la tacaalaan cudurkaasi inaanu ku dhicin oo ay waxbarashaduna sii wadan karaan iyagoo guryahooda jooga. saraakiil ka tirsan hay'addan ayaa sheegay in ardaydu ay u baahan yihiin in taageero laga siiyo waxbarashada dhinaca akademiga iyo taageero dhinaca moralka ah. 540,000 oo kiisas ah ayaa lagu qiyaasay oo kaliya hal subax oo Jimco ah toddobaadkii aynu ka soo gudubnay.
iyadoo 24,000 oo qof ay u dhinteen guud ahaan adduunka. tiradaasi waxaa ka mid ah 1,300 oo ku dhimatay dalka Mareykanka. cudurkan